calan yar oo calalabaa la samaystay oo dhexda lagaga qoray maxay laa ilaaha ila allah war laa ilaaha ila allah inay dumarku dabada ku xidhaan ragguna hoosta ku xidhaan ma bannaana laa ilaaha ila allah intaad marya ka dhigto uskagayso inaad hadhow tanaga uskaga lagu rido dharka uskaga aad ku riddaa kuuma bannaana laa ilaaha ila allah intaad ku qorto hadhow dharkaad uskagaysa iyo nigsaantaada inaad khasaaladda ku wada riddo oo aad ku maydhaa kuma bannaana laa ilaaha ila allahda sida tan loo galay waxaan ka cabsi qabaa inay xag gaalnimaba gaadho laa ilaaha ila allah inta dhulka la dhigo lagu tumanayo ilaahay magaciisa sidaa qofka muslimkii inuu galaa marnaba diin kuma bannaana intaa waxaa ka sii daran oo iyadu wax cidinaba aanay aqbali karina ilaahay magaciisa intaad mara ku qorto inaad dabada ku xidhato oo dhulka dhigato oo gabadhida ku xidhoome waa ihaana halkii kama dambaystahayd weeyaan haddaad leeday laa ilaaha illa allah baan xurmayn inaad kor u qaaddaaba haydoo meel sale ay taagnaato laa ilaaha illa allah inay mara dumarku isku duuduubaan ama marya ka toshaan noqotaa ilaahay wuxuu leeyay daalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainnaha min taqwa alquluub alamru daalik waman yucadim shacaa'ir allah baa ilaahay cidda weynaysa shacaa'ira diin illaah ilaahay diintiisa calaamaadkeeda cidda weynaysa ugu horrayn waxaynu isu tilmaami doonnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka aakhiro badbaadaya wuxuu ku tilmaamay afar sifo ciddii laga helo suurat alcasr waalcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr afartaas sifo waxaa ka mid a atawaasi bilxaq dadku waxa khayrku ku jiro ama xaqa inay isu dardaarmaan nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu tilmaamay addiinu nasiixa xadiidkii imaamu muslim iyo kayrkiiba warinayaan addiinu annasiixa diintu waa nasiixo waa alxaju carafa oo kale kaannamaa laga soo qaaday diintoo dhammiba inay tahay in laysu naseexeeyo nasiixada culammadii soomaalidu waxay ku fasiri jireen khayr miirad waa qofku aad khayrka u miirto nasaxa alcasla waa malabkii buu miiray oo qashinkii iyo wixii kale ku jiray uu ka saaray nasiixadu markaa waxay yidhaahdaan culammadu waa walaalkaaga kale muslimku aad khayrka u miirto yacni aad khayr u dardaarantid saxaabadu nebigay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen yay diintu nasiixad qulnaa liman baanu ku nidhi buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaa lilaahi walikitaabihi walirasuulihi walia'immati almuslimiina wacaamatihim ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo kitaabkiisa kuwaas waa in la raaco oo wixii ay sheegeenna lagu dhaqmo iyo muslimiinta dadka u taliya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam a'immada dadka madaxda waa muslimiinta iyo caamadoodaba marka waxa weeyaan dadka muslimiinta oo dhan ayay diintu nasiixo u tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam saxaabadii uu baycada la galay waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray jariir ibnu cabdillaahi albajali jariir tolkii buu suldaan u ahaa nin suldaan ama caaqil ama waaye odaygii reerka ayuu ahaa markuu soo islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam bayca buu la galay heshiis xadiiska saxiixayn ku yaalla cabdillaahi jariir ibnu cabdillaahi albajali wuxuu leeyay wuxuu nebigaan bayco kula galay calaa iqaami الsalaa wa iitaa'i الzakaa waannusxi calaa kulli muslim inaan salaada oogo zakadana bixiyo iyo maadaama uu imaam isagu ahaa ninka kaniyo dadka muslimiinta dadkii u talinaya uu ka mid ahaa wuxuu nebigu ku yidhi waannusxi likulli muslim iyo dadka muslimiinta qof kastoo muslimaba inaad u naseexayso idan ayuha alaxiba kelmaddan caawa ka hadlaya marka waa kelmad nasiixa ah caamada waddanka degan ee muslimiinta ah iyo maamulka iyo madaxda joogtaba u ah
maalinta ay dadku yidhaahdaan maalinta wataniga ah الاحتفال باليوم الوطني إن لو دبال دقو أما الله ماموسو مالين توضنك عدوى لبا مالين بيشيغتا أي مال ماك لك علامة سطي أما مالين حرية ذات الله يدادو أما مالين نعمة كلا لها هاي الله يدادو وحي الله دونها لغو علامة ديو مال علامة صدا دبيتنا احتفال دبالدق بيدتكو سمية دبالدق مالمهاسي مبنان يهي دينتو مكودا واقيسة مسا مبنانا علماء لبا قول بيكاليه انت انا لبدو قول صوبان ديقين وحن ربا سيدي دبا انان تلمامو نبغو عليه الصلاة والسلام حو يالي جريسو إلا نسبة مالما وقوليستي مالما ودقال لكو قوليستي مالما ودولة دكا قوليستي مالما بدن باصومري مالما هاسي سيدو نبي محمد الله رغمي عليه الصلاة والسلام إلهنا سبحانه وتعالى قرآن كوحنا وقلت الماما في سورة إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إلهي وحلي سبحانه وتعالى نبي موسى آيات كيجي كصادر وحلو صادر وحكم إذا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور تلقى مدوغي مجدك كسر وإفتينك جي وذكرهم بأيام الله بالليل مالمها إلهينا كواني maalma aad jabtay maalma laga xoog batay maalma aad xoog badatay maalma aad abaarsatay maalma aad nicmaysatay maalma badan oo nolosha kamida ku soo maraya ilaahi wuxuu ku yiri nabi muuse wadakirhum hasusi oo kuwani ilaahi maalmihiisa in fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur dabeetana ilaahi wuxuu inoo sheegay maalmihii uu nabi muuse dadka kuwani وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وحو قبل أبي مركا وهذا حستان با إلهي مركو نبي موسى تلك كيري ور إلهي النعمة حصوصتا إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم مركي إلهي وفرعون يقوم كسيدي كبد باديه إذن نلشو مال ما إلهي مال مها سيال ولا نغمه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مال ما بدن باصومري وحصومري مال ما وقوليستي بدر باصومرتي أو يغير أو ترير أو قال كحق بدني كسودو شيء كننو هبكود ودنيه دور بقولون نف وطه فرد وطه أور وطه وحول بوطه يا صحابان دجال بكسو تلاقين السدح بقولي دور يطبان قفا لوا فرس وغرف وفشان وحبان دجال كنت تلاقين هنا السفر مال مرة يسوق بتاع كسو تلاقي إلهي سبحانه وتعالى ووجولي سيدو نبي محمد حسين مال انتهى وحصامرت يوم الحزاب ومالين قالوا دميسو أرورستي قال دي قدا كجرتو يهود لهيد كوي يسهينا قريشها كوا كلا يصدوا في صدنا غطفان يا قبائل كلاء يدو الله إذا مقالة مدينة ومركا دتك دقني صدح كون وقف بو قاري أيا طبعا كون أعيد أن يسوى ررتي إلهي مركو تلمامي يقران كوحكو تلمامي إن زلزال ودعي دول قرير يكون نقطي قلبي قرير بدعي إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون إلهي كنت المامي وحصامري يوم الحديبية وإلهي سبحانه وتعالى وهيلي وحصامري فتح مكة ومالتي كقوليستين قالت شبيين مالتي قالت يقويني شبيين
بيت الله الحرام قبصدين ويكسفين دور بقول الصنم وميش دحيا لي أو نبي عليه الصلاة والسلام سوق قال سيد حديث البخاري شيء استقوا آخرنا يا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك آيات كاس أما آيات من سورة الفتح كم ذا استقوا نبي آخرنا يا عليه الصلاة والسلام وحا صوم مالمو نبي صوم مري مالنا عيد كموديغان مالنا حوقيس يمرقيس موجيه كموديغان maalinu dadka isugu yeedho oo yiraahdo farxa oo boodbooda kama dhiganin saxaabadii muslimiinta ee ka dambeysay waxay furteen dunida maanta muslimku ku nool yahay intooda badan saxaaba furatay waayo ilaa iyo Abu Ayyub al-Ansari istaanu ku aasay meeshan Istanbul la yiraahdo ku aasay xagana ilaa bariga iyaga furtay xagana ilaa galbeedka iyaga furtay labadii dawladood ee dunida ugu xooga weynaa ayay midna ka takhaluseen gabigeedba midna ururiyeen maalmo waaweyn baa soo maray maalinna maalmaha ka mid ah oo ghazawaadkii macruufee la yaqaanay maalinna may calaamadsanin taabiciintii ka dambeeyey saasay haayeen salaful umma saasuu u dhaqmay islaamka waxa la yaqaanayo kaliya markay ciid iyo farxad iyo rayn tahay laba maalmood oo qura ama haddii laga maarmi waayo dhowr maalmood oo tirsan ciid iyo ayaamu tashriiq iyo maalmaha jumucayaasha intaasaa soo aroortay nin yahuudiya ayaa wuxuu akhriyay aayadan quraan uu maqlay ee ilaahay leeyay waa aayad bartankeed bay ku jirtaa اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي باوح لي هي قال ما أنت وكقوصتي إن يدنسوهم قريان وهكذا إلهي لي سبحانه وتعالى ما أنت وحن دين دم يستري كمال كوحي علماء إلى هذا شيء كان زيادة أقبلين تمام كبير هذا زيادة وأقبله كمال لكن زيادة ما أقبله بين هذا اليوم أكملت لكم دينكم بإلهي دين تني وأنا دين كملي وإذا ما يسترنتي زيادة ما أقبشه وأتممت عليكم نعمتي نعمتي وأنا دين تام ياله نعمات كويس كده بإيماني والصعدة ورضيت لكم الإسلام دين إسلام نمانا الدين بان دين كرال النقضي نينكا يهودي قابا عمر وحكو يري أنك هدي نقص ودقل هيدا اليوم أكملت لكم دينكم ما لنتا عيد بانو كدقل لهي ما لنتي دين تا إلهي دما يستري وودا بالدقل لهي عمر با وحكو يري ما لنتا يسودكتي وان قرنا يا بولي عرفة وما لن جمعيضة أي سودكتي بولي يا يضطني لكن واحد إرادة مسلمين ما يسمينين عرف هذي مالمه دنبي سوق ليس نسيون بحج كلو جدني جمعة يا الوقت جدا بي مني نسيون با لو عبادة سنة وما حي وحقفك مسلم كان لا جرب هدون نعمة هلا أصل كو حوي قفك مسلم كا هدي دي بكل عضنا والصبره هدون نعمة هلنا إلهي بو مهدنا سبحانه وتعالى سادرات العلماء واحد هذا الشكر قيد للنعمة الموجودة وصيد للمفقودة بين هذا شكره إلهي الله مهدنا وحوية هي النعمة مركا هي سطو دبر بوية يسيتو وحلقو حيو نعمة كام مقنة وحلقو غارسدو يهي بيلي نعمة كام مقنة وحلقو غارسدو يوي إلهينا قرآن وحكول إلا إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هدا إلهي هذا النقضان وندين كردين با إلهي لي سبحانه وتعالى
هدا إلهي ومهدنقي ويدانا كفره وكفران النعمة إن عذابي لشديد عذاب كي قوى الدرنية هيبال لله سبحانه وتعالى آية كلا إلهي وحليه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي وحط صالين كسين يا بليدي مقالو نبض أحيد وحصل لونيد والرزق هذا مالك استوى إيمانيي لكن إلهي النعمة دي سيكو كفر دي إلهي النعمة دي سيانكم هدنقين ويد حصل لونيد نعمة هيستي برواقي كتشرتي برواقة دي كم هدنق دا عسيان بيلتمي محاكو دعي إلهي وحلي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إلهي وحو ددنسي لباس الجوع والخوف قاتشد هجيدي يا عبسد هجيدي بلا ددنسي بلا يدي علماء البلاغة إلى هذا تعبير كانوا حكوا شيرا الله طائف افتراض بدن له والله ما أردن فألبسهم الله لباس الجوع والخوف فأذاق بالغ استعمال هدنا ذوق وحل الدميال إلى هذا مشت لباس الجوع والخوف بياله علماء البلاغة لطائف ترى بدن بيت المامان لكن نقول حنوصع عنهم إلهي وحلي سبحانه وتعالى كوي إلهي النعمة دي سكة كفريي يكون مهد نقواي أبال كادي بيهلانو إن هو قاعد يعبسد الله فهويه والله بشيء خطره والله بدي قريش إلهي وقوم النشاكتي إنه كبد بادي لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عبدان بالليل إلهي قاجنك قوديي عبسنك النبت قليي لكن هدي أيدتكو عبادة الشكر الله من ويان عكس قاعد عضه وأهل لباس الجوع والخوف إن نصره سيدا أوجد قفك مؤمن كاي هدو قوليسته أما النعمة هلو ما كبره ما يسوينيه مرقه صدقك ما تصوي ما يراه بل أنت حق يقول لك يا أرك لكن عكس كذا وإصدل دقاه إلهي بو عابدا ومهد نقاه دتكو عافية ولذلك بين علماء واحد شكر النعم مرك الله يقول تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام صدح ذا الشيء كم مغنية والعبادة يا التواضع يا العفو باكم مغضب إليه إلهي قوبه ونبي قوليستي قوشي وقوينيد مركي إلهي وكور رمي وحليلي نبي محمد شقد الله صدر إنه دتك الدين تجارسيو قال هذا سكر عيابه إلهي وحيد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله هدي إلهي قوشي سكوت ما دبا ليدي فرشديس وتقول يسته وقال ذاك قول يستد والنعمة يستد ما حي السماء بالليل وأدركت با إلهي ردتك الدين تكوح كوح سوق ليا مركي هوري دين توحل لو سوق ليا قف وقت جاي وعديدي وصار مسلمين تا قفل قنعية وما سوق ليا لكن مركي راية إسلام كورن قطي إسلام كقوليستي قريش للشبيي قال هذا يودن لقى أتكادي قبائل كي عربين مركا قبيل يه وفتي بيقول يمنيين دين توحي وسوق ليا مركا جروب ولما يجو كوحة إلهي وحول هداد سدا أركته إلهي قوشي سي نسر جيسا هداد هشو وأدركت دتكو الدين كوح سوق ليا ما حي سما بالليل ما بدبرات نقاد بالقويري سومالي دول لحدن كمر كي يقول يستي بل كهلا يعاني بي بلابين أنا كوها صح وأمرك إلهي قال ككعيه إذن أما لحيلاتن جون دا أما كوتش ولاي دا أما سيداد يتبان دا أما كوبي لاتن أكتوبر وحي سو مالين لهايان ودن اسكو صدر كبير بيك قادين حي مالين لهايان ودن كبير بيك قادين
halka ay ahayd haddii ay wax heleen inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqaan haddii dhib haysatay ay ka kacdaysa iyagu dareemayeen inay ilaahay u mahadnaqaan ilaahay nebi maxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markaad guulaysato ee gaalada aad jabiso ee aad aragto dadkoo diinta koox koox u soo gelaya maxay samee baa la yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba baa ilaah yidhi tasbiixsa baa ilaahay yidhi adigoo ku dheehaya ilaahay mahadnaqiisa iyo xamdigiisa subxaana allahi wabixamdi adigoo tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya ilaahay subxaanahu wa tacaala xamdigii iyo mahadnaqii wastakfirhu innahu kaana tawaaba weliba ilaahay wuxuu u raaciyey ilaahayna dembi dhaaf weydiiso oo maxaa loo dan leeyay bini aadamku mahma uu wax fiican sameeyo meelo saluguu ka muuqda lagama waayo afcaasha bini aadamka saa daraaddeed iyadoo guul la tilmaamayo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay ilaahayna dembi dhaaf weydiiso tasbiixsana ilaahayna u mahadnaq subxaanahu wa tacaala walidaalika maalintii fatxu maka ay dhacaysay waxaa la yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu xaakim warinayo ee uu tasxiixinayo imaam dahabina fii taariikhi uu ku tasxiixinayo waxay yidhaahdaan dakhala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam yowma alfatx wadaqanuhu calaa raxlihi mutakhashica wuxuu nebigu soo galay maka wuxuu soo galay nebigu isagoo neef geela fuushan oo miqfarkiisii koofiyadiisii dagaalka sita oo cumaamad madow duuban laakiin sideeya ma isagoo le badhbadhaanoo guulaysanoo gaaladii waa jabinay maya wuxuu soo galay nebigu calayhi salaatu wasalaam neefku fuushanaa raxligii saaraa raxligu waa koorihii iyo wixii neefka dushiisa saaraa isagoo gadhkiisa uu gaadhayo ilaahay subxaanahu wa tacaala u khuduucaya oo sujuudayo gadhkiisu halkaasi gaadhayo oo mutakhashica khushuucsan buu soo galay isagoo ilaahay u mahadnaqayo weynidiisa dareemaya ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maka soo galay walidaalik ay culammadu waxay tilmaamaan qofka mu'minkii hadduu guulaysto ma kibro cidda kibirtaa كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى با إلهي تلمام إن إلى ربك الرجعة بنادم كهدو دق طومه كبر بوك غاضة وبن آدم كان مؤمن كدبطاي دق طونك هي النعمة كبر بوك غاضة سيدا أوجد نبي عليه الصلاة والسلام إسقى صورة داسي قرآن عبد الله بن مغفل حديث بخاري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقتي أو جملي وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع ترجيع سقو سمينية أيها الأحبة ما المها قوشو هديبا يقول نقطة وحيابها يدريميسا ما هم الملك بروح ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مدينة مركو قالي أيوه حارك يهود وصومن حديث صحيحين كويالا مركز يقولي ورمام حيثون كان ما أنت صومنتي وحيد هذين ما أنت نوع عاشوراء ما هذا اليوم الذي تصومونه أي نبي ويدي قالوا هذا يوم عظيم بينهن ما أنت نوع مالين آدوين ووايو أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فسامهم موسى شكرا فنحن نصومه وهلين مالين تطني ومالين إلهي فرعون شبيي نكي لها أنا ربكم ولا على يدك قميسني قميسي فرعون وحين ذكرنا ملا التاريخ ده انت الله هيو وننكي برملا ننكي وكبر بدنا لأن أنتو خلقي سورة أقول هذا ربي جيم بانه خلقي داية
kuwa madaxda ku soo dhadhow wasiirada iyo xaashiyada iyo haamaan iyo gruubka kan ayuu wuxuu lahaa maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaahaan aniga ahayn idiinma ogi kaba kaale caamada iyo dadweynaha kuwii agtiisa joogay buu wuxuu leeyahay maa calimtu lakum min ilaahin hayri ninkii sidaa u kibray ninkii dadka ku xukumay inaanay caruur wixii wiil ay dhalaan in la laayo dumarkana in shaqaale laga dhigo la adoonsado weliba aan mar qura xukumina 2 jeer xukumay 2 jeer buu xukumkaa gaadhay ayaa nebi muuse ilaahay yidhi adiga iyo inta ku raacsanay guureeya ka baxa waa kii badda la isku soo gaadhay dhinaceeda waa kuwii yahuuda tiri waa layna soo gaadhay uu yidhi kallaa inna maciya rabbi sayahdiin aniga ilaahay baa macayga u i hanuunin ilaahay baa ii jid bixin waa loo jid bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qaanuunka fiisigiska isagaa dhigay therefore ilaahay ma xukumo kaasi innagaa xuweyna xukumaa oo aan ka tallaabsan karin waxaa la yidhi ushaada badda ku dhufo ul buu bad ku dhuftay dabeetana 2 buuroodoo waaweyn bay noqdeen waddadii 2 buurood u dhaxaysay ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay ariiqan yabasa jid engegan xataa dhooba maaha meesha hadday biyo ka faydmaan waxaa sida caadiga ay ahaan lahayd dee meel qoyan oo dhooba leh ilaahay wuxuu leeyahay waxaan uga bixiyey waddo boodhku ka kacay waddo engegan tii bay ka baxeen dabeetana fircoon iyo kooxdiisiina kibirku markuu kaa bato bini aadamku hadduu aada u kibro caqligu uu ka tagaa waar meeshu waa baddaa nimankaa loo jeexay iskaga joogisma odhane kibirku isku soo qaado nin kibrey haddaad aragta caqligu wuu ka tagaa fircoon kibirkiisu wuxuu keenay inuu yidhaahdo anna maan maro wuu soo jiidhay dabeetana ilaahay wuu ku awday baddaa la raaciyey haddana ilaahay wuxuu ballan qaaday qoloftiisa in ilaahay reebayo si uu dadka dambe waxay ku waana qaataan uu noqdo qoloftii fircoon hadday taallaa bay culimmadu leeyihiin hadday taallaa qoloftii fircoon ilaahay baa kaydiyey si kuwa dambe ay ugu waana qaataan ay u arkaan kibirku halkuu ku dambeeyo yahuudi markaa waxay leedahay maalinta tani waa maalin weyn waa maalintii ilaahay nebi muuse badbaadiyey fircoonna halaagay dabeetana nebi muuse maalintaa xuskeedii wuxuu ka dhigay inuu soomo ilaahay uu mahadnaqo rabbigii badbaadiyey ee fircoon iyo qoomkiisiina halaagay inuu soomo annaguna waa soomaynaa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku yidhi nimankii yahuudeed fanaxnu axaqu وأولى بموسى منكم فسامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه مالتنا عاشوراء نصونا ومهدنق إلهي الله مهدنق يينو فرعون هلاقي نبي موسى أبد باديي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سنين تسومي جري مركز سأل ويدي مالتا سنين تمحادو صونتا ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه حديث إمام مسلم هذا صنطا بقى ليدي مالنتا سنينتو وحنا بقولي مالنتا سوا مالنتي عند الشيء وأنا مالنتي وحي يقول سودجي دبتنا النبي هو الصوم وحصلنا إن أنا إنه صونه inagoo ilaahay uga mahadnaqayna inuu diinta inoo soo dejiyo nabi maxamed ku soo dejiyey inaynu soonno isniinta ayaa sunnada ah ayuha alaxiba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ciddaysayeenee gaalada ahaa markuu ka guulaystay ما قايلين بربرادنا ما قادين وحبنا ما قادين وحولي ما ترون أني فاعل بكم حديث كإمام البيهقي وريني ما لين ساننا ندو كسمين دونه نمكي حوله دي مسلمين تقاطي تورشر قريي وضنك كساري هدنا أن انت كهدين كدبت تجي انت سوغور مدينة كدولي بدر أحد أحزاب waxaa soo dhimi duulimaado reer Madiina lagu qaaday waay waxaa soo colaad iyo dagaal la galay oo imisa colaad iyo dagaalka kula jiray waxay kula jireen xawaalay
كوبي الله تنسى النضود وحكو دو هدي لغا ريبو لبدي سنادود صلح حديبية سقال إيه طبعا سنادود بيدقال كوهيين iyagoo intaas 19 sanadood nabi maxamed la dagaalamayay ayuu yiri markuu ka xoog batay maxaa u malaynaysaa inaan ku samayn doono waxay yiraahdeen akhun kariim wa ibn akhun kariim walaal fiican iyo inaadeer wanaagsan baan ku filaynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri aqulu kama qala akhi yusuf nabi yusuf wixii walaaladii ku yiri baan idin leeyahay قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أنا ما أنت ما جرته إلهي دنبقين هدافو وهيدين حريست يسقى حريست بدني اذهبوا فأنتم الطلقاء حديث يا إمام بيهقي باورية شيخ الألباني حسبك تلمامية أيها الأحبة مالمها النعمة اللي ماها مال مفان دينهان ماها مال ملفانو قور ما قفك مسلم كافام كو بنايه وحيدا هذا مركا قالد الله يصيو قوبها الدقالك جهاد كمركا الوجرو يا قالد مركا الله يصيو أيو فامك يحوق إلا موجياه بنان تيبع علماء دويد هذا مركو النبي يقول مكة سوق علي عمرة الغضاء قريشي أي مكة كصور ورتاي وإدني سسوت أجين طواف كمسلمين تداون يا نايلين مدينة يلوان من قحون تكي ما يفعله وسوي صوت بحين أنا رجنه نبغى حكوا مركز شوط حق أمر إنسان قعلية يا ضعف بيدن كم مغني ولي وينك قعلينا مركز إنسان قيب خميدا مركز الأمر حق كلام مركز أمر إنسان إسكالو جاي بالليل يا قعلة اللي تسيي قريشين أنا يمودين إن لليته إن حقوق قال الله تصو وهو النبي سمي عليه الصلاة والسلام حديث كدير أئمة بدن يسورني عن طبراني في الكبير بيهقي ابن إسحاق في سيرته علماء بدن يسورني عن شيخ الألباني الصحيح كنت المام يا أبو داود قيبك كم يتسورني وحديث كشيء يمركي النبي فتح مكة يضر رمضان أيوك صباحي مقالة مدينة لحد الصامري على كل حال مال مكود ومركو مريي أيا أبو السفيان وهو مركا سيد قوبي الله تنكاس النضود بالنبي كسهر شيدي أيا صباحي سقو بل طليعة سقو إيجا يبل سيد وحجران دبتنا وحا قبطي وحال كل مي العباس بن عبد المطلب أبو سفيان ينكلوا ولا هضلي يا أبو كصباح يا العباس بن عبد المطلب عباس با مركا الله هضلي كذب أيدور يا أبو سفيان طلقها إذا كان النبي محمد وطما تسكي على كريم يعني ما يدين إسلامي ما تسكي إسلامي أو طلقها سامع شيء إنا كان أنكو جاي يقول النبي قاد ويدي ست إن أدنى لكم مجنجليه طول كان اللي مجنجليه على كل حال إنه أنت إنه قدر لأنه من رواية دار ودار يحدث كيك سوق هذا نما كيك على الدبي يسقى النقطة أبو سفيان العباس بن عبد المطلب بغله جاي والنبي محمد لها حاله بغل النبي ولها وطه أيو صار راعي حق دمو صار ciidamada muslimiinta la soo dhaxmaray kolba qol ku soo baxaa markaas dab meel ka shidana uu soo dhaxmara marka ciidanku soo kacaan bay arkaan baqashii nabiga inay tay dabeetana way iska noqdaan sidii buu ciidanka ku soo dhaxmariyay isagoo uga cabsanaya hadday gartaan inay dilaan waxa la yiraahdaa Umar baa mar dambe gartay oo ku soo haliilay aduu Umarna baqashaa la eriyay oo nabiga looga hortagay isagoo le ilaahay cadawgiisii baan helay maanta isagoo aan magangalyana cidisin ballana aanan kula jirin laakiin nabi maxamed baa loo geeyay calayhi salaatu wasalaam akhiiran abu sufyaan wuu islaamay waa shahaatay dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abu sufyaan kaxee waxaad geysaa ciidanka muslimiintu halka uu soo mari doono
xoogga muslimiinta la tusaya war hageeya nimankii quraysheed ha wargeeye xoogga muslimiinta ha la tuso abu sufyaan buu meel cabaas isla taagay dabeetana qabaa'ilkii muslimiinta oo qoloba calan sidata soo marta kolba qolaa soo mara calan sita markaasuu yidhaha kuwani waa ayo markaasuu yidhaha waa sulaym maali wali sulaym buu abubakar yidhaha war anaga iyo reer sulaymna maxaana kala galay kuwani waa ayo markaasuu yidhaha waa musayna war anaga iyo musaynana maxaana kala galay kolba qolaa soo marta sidii ciidamadu kolba qolo u soo maraysay ayaa markii dambe waxaa soo martay katiibat alkhadraa qolo la yidhaahdo ciidankii cagaara waa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ciidankii maxaa la yidhahdaa nukhba waa nukhbadii waa muhaajiriintii iyo ansaartii oo aanay muuqanin jidhkooda bu'da isha mooyaane aanay meel kale ka muuqanin alxadaqa unbaa muuqata ayaa soo maray markaasuu yidhi kuwanina waa kuwa macabaasow markaasuu yidhi waa ilaahay rasuulkiisii iyo ansaar iyo muhaajiriin weeyaan markuu arkay nimankanina siday u hubaysayin buu yidhi maanta walle inaan kuwan cidi waa dee 10 kun ciidanku ma aha koox yar kolba qabiilku maraya waa 10 kun oo ciidana abu sufyaan baa markaa wuxuu yidhi maanta kuwa kan cidi uma taakayso cidi sortaagi karaysa maka kuma ogi buu leeyahy abu sufyaan daymukum budirka ku ashahataye markaasuu wuxuu yidhi laqad asbaxa mulku ibnu akhika alghadaata cadiima cabaasow inankaada adeerka u ahayd wallaahi boqortooyadiisii waa xoogaysatay buu yidhi cabaas baa wuxuu yidhi yaa abu sufyaan innaha nubuwa waar boqortooyo meeshu maahee waa nebinima buu leeyahy iyo diin ayuu tilmaamay fa nacam idan buu yidhi markaa hadday diin tahay markaa waa aqbalay abu sufyaan nebigu cabaas baa wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisii abu sufyaan wuu ammaan jecelye waxoogaa ammaana ku dheh markaasuu nebigu yidhi guriga abu sufyaan ninkii maanta gala waa badbaadaya ninkii albaabkiisa xidhaana waa badbaadaya erayuu tilmaamay abu sufyaan baa markaa soo cararay isagoo tolkii raba inuu warramo war ciidanka maanta soo socda uma babac dhigi kartaan buu leeyahy maxaa la yeelaa wuxuu yidhi man dakhala daara abu sufyaan fahuwa aamin guriga abu sufyaan ninkii gala waa nabadgelaya islaantiisii hindo halkan ag taagan baa shaaruubaa ku dhigtay gurigaagu ma quraysh buu qaadaabay ku tidhi markaasuu haddana yidhi waxaa la yidhi ninkii albaabkiisa xidhaana waa badbaadaya sidii bay uun tolkii uu ku badbaadiyey xadiidka maxaan u soo deliishanaynaa رواية ابن إسحاق سنة كده صحيح بالله تطبراننا هي غير كينا إمام الألباني بالصحيحينية وهي تلمام ساعة عدة حق الله توصيا وقال يكوي للشبيني قوب تدقال كوحب بنان التبختر صحابي أبو دجان اللورنجرية مركو قال هذا هر مريو قوب تقالد مركو الله يسوي مادو الأعصاب الحمراء أبو حدنجري دبتنا يتبختر meesha horteedu mari jiray waa nimankii geesiyadii waaweynaa ee muslimiinta ka mid a dagaalyahanadoodii caanka ahaa goobtaasi waxay culammadu yidhaahdaan fanku wuu bannaan yahay goobtaa dagaalka in la isku hayo gaalada inay muslimiinta ama xooggooda muujiyaan ama muruqooda tusiyaan ama faanaan ama tabakhtur sameeyaan waa u bannaantay أما مالمه إلهي كو غرغاري أما أدن معها الشيء مالما لكبرا معها والمال موقف كمسلم كي هدون نمع الدريم يينو هلي تواضع لي ماد كبرك يا فانك ودتك أنا إلهي الرمي سنين وحي سمايان شيوعيين تي وحي سبي جرين أما قوة الليبراليسم كنا حتى واسمايا قيبة كميدي ليبراليسم وانت بدن يجو عيدا مضى يمي اللي ترقيا وحاماشا مكانان لكن انت على ما يرلق عطابا وضد الله مراه ودرك هدية لقا كاين قاطان أي قاركود أما بقرطويدو ماشا مرتا أما شعبكم مران أما بقرك الله صوص سلامة قوة رير بريقونا ما دام يجو دي قوة الليبرال كاي ربين مرقودة تسيان قوة رير بريقونا waxay xoog hayaanba meeshay mariyaan
dabaabadaha kaarayaasha taangiyada waxoo dhan kolbana kooxeedaha oo qaylinaysa soo marta idan al-fakhr wal-takabbur wal-ghinaa al-khali' wal-tabdhir wal-ikhtilaat wal-raqs wal-fisq waxaasi waa min shiyam al-kufr tashabbuhood iyo ku dayashadooduna waa gaal iska yeelyeelun nidaamkii siyaad barre dadku ka cabanayay intii xumayd bay ka dhaxleen xataa intii si wanaagsanayd may qaadanin intii liidatay tarabuunkii weli lama ilaabin 22 Oktoobar la mari jiray halkana dad tarabuun kala ka dhisanon waa nafsu shay hays bedelay tarabuunkaas siyaad barrana ardada ciyaal iskuulka iyo militariga iyo naaga qaqaawan iyo cid walba iyo guul wadayaal iyo kuwa heesaya oo ninka wada amaanaya guul wada siyaada ayaa soo mari jiray kuwana waa inta in leego kibirku dhaqanka muslimka waa kama mid ah faanku dhaqanka muslimka kama mid ah xoogaaga aad qof muslima tusisaa oo adigoo ku faanaya kama mid ah dhaqan muslim waa waxyaabii shuuciyadu ka tagtay ama gaalo waxay sameeyaan hadduu faraxu kibir noqdo qofka muslimka inuu iska farxaa waa bannaantay laakiin faraxu hadduu kibir iyo faanfaan isu bedelo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahay gaalada waxaan ku cadaabay waxaa ka mid ah faraxii kibirka noqday إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في سورة الغافر إلهي مركو صوضوا إلهي وحلي ذلكم العذاب عذاب كاوحا كوهشين ومحي بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون بإلهي وحيا فانفانكي يا فرحات يا أرنولك فرحيسين كبر كاسمينيسين بغير حق إيه وبما كنتم تمرحون ولا تمشي في الأرض مرحا بإلهي إيه وبما كنتم تمرحون فانفانك يا كبر كأرنولك لا تشوكتين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين إذن فعل كيل إلهي قال كان كو عذاب يا إن ضدو السماء صادق وكفان فانيا وبدارا إلهي أدقى وحكويري ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إلهي وحين ليه سبحانه وتعالى شرعا دين سودتشي السقى الراعة وضدك كله هودوده كوا وحما قرطدا هودوده الراعين با إلهي سبحانه وتعالى انت هو حكسي درن ويدو وحد عيدنا بقى أنا أقبل كرنا إلهي مجيء أنت مركو قرطه إن الضبط كحرته أردوك ديجته قوارده كحردومه وإهانة هل كي كم الدم يستهدوية على نير وعلى لبا على السماستي وردحنا لك قريم حي لا إله إلا الله ولا إله إلا الله إن يدمر كالضبط كحردان رجونا هوست كحردان ما بنانا لا إله إلا الله أنت مريا كدك توسك جيسو إن هذا تنجوسك قال له قرر دار كوسك قاعد كرر دكوما بنانا لا إله إلا الله أنت تقرته هذا دار كوسك جايسيا نكسان هذا إن غسالة كود الرداء مكوما يدا كوما بنانا لا إله إلا الله ده الصيد تنلوق علي وعن كعب سقباين حد قال اللي ببقعده لا إله إلا الله أنت نورك الله قال له قلت من أيو إلهي ما عيسى صداق قفك مسلم كين وقلا مرنا بديكم بنانا هداد لا إله إلا الله بان حرمين نذكروا قادابا هدو ميل سلاي تاغنات لا إله إلا الله إني مرد مركز كدو دوبان أما مريكات وشان نقطة إلهي وحلي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الأمر ذلك ومن يعظم شعائر الله بإلهي عد وينيسه شعائر الدين الله إلهي الدين تيسى علامات كذا عد وينيسه waxaa aayadkan laga warramayaa xajka neefafkii qalaa'idka loo soo xidhay ee la yidhi ilaahay baa loo hadiyeeyo kacbada lagu wadaa ee kabta halkan laga soo laalaadiyay kuwaasaa la leeyahay in la ixtiraamo waxaad malaynaysaa laa ilaaha ila allah markaa dalika waman yucadim xurumaati illaahi fahuwa khayrun lahu cinda rabbi war ilaahay kelimaadkiisa
لا إله إلا الله إري لغو عيار ماها انت مرة لغو قرو إري ميلها لا سرسر ماها إري دولك الله ديغم ماها إري عيالك اسكس الصوران انت كل دبدا كحدان كل لغوها كمرتان كل قوادد السودان كل بورد كديغان ماها إري دولك انت لغو داديا داركتو مريا يرو دولك كداتسنو دمانتو لا إله إلا الله كو قرنتاي دين ماها دينها نوح بنان ماها انت اسكغيسه هدوناد مريا اسكغا كو دحدرتا سينبا ومر بنانا ايها الاحبه احتفالك وطمعاصده عد مسلمات تري وي بنانتي ما جيرو كاكوده احتفالك معاصي وطا عد مسلمات تري وي بنانتي ما جرتو احتفال كان معصي وطنين يبالدك أن معصي وطن من رجع دمر لسكو قوشين إلهي وحكا عريسين يلا لا إيمان ناقا يا عفور يا هبلا يلا لسكو دحضرين بلغو بوغين لوضا تمنين كبير يفان فانان كوشيرين إلهي وحكا عريسيان لا سمينين احتفال كان انت مدنبا كوشيرين أي علماء دول برأي كليين قال لي وي بنانتي إيه قال لي ما بنانا ومركا أن انت مدنبا كوشيرين قال وحي لي ما بنانا وسيدا اللجنة الدائمة في السعودية أي فتوضين وليبا مركو مدح تكاها ابن بازيو عبد الرزاق العفيفي علماء دواوين مركي مدح دواهايين ومسألة فتوضي ابن عثيمين ومسألة فتوضي فوزان علماء كله كوحدة صار موحي قبطها وحاسب إنانو بناني علماء كله وحي قبانين وبناني وسيدا كا أروسيدا مركا لا دغاني احتفال كلا سميو iyo wixii la mid ah كاننا هدو مالنا تقوليستي اد احتفال سميسو باي قبان لكن بشرط إن وح منكر أو كلو دين تديدن تهي أنا كده حجرين كاسي والله بالرأي أو علوم لاده قولوا ولي بنا وحبي دليشتا أدى صلاة دي ولا دي ما يا دي دودا كما ورا مكرينه لكن وحان تلمام يناوحو ياهي دقن مسلم كبر ماها دقن مسلم سلويندو ماها دقن مسلم إلهي عسيان كيبان وقد بالدقيا نعمان هلا هدي باي نمعتي وحا هشين هدي باي نمعتي وحا هشين إلهي مع سيدي سان وقد بالدقيا ورمين لما دينتك كما جرتو هدي إلهي مركو نعمك السيو أد كفران النعمة التي مادو إلهي قرآنك وحين أقول فأذاق الله لباس الجوع والخوف إن مركا الله يسردان سين دونو هو قاعد يبقى أو ذا قرنس إن شاء الله مركا ملا أنت بدنا واير يريده شاء الله مركا قحوتي هذا شوكتين يا كوب كشاهي وحوينها إنك كوب شاهلا النعمة ودموسه هو يتيوها هل ميل قفك عنا وبرارا هل كود بيسي شيغاني ددكي نوعاها انت كبران الهي عسيان كي اني حدكا كغادان وليبا اي غادان انت لا اله الا الله قرطان اني لا اله الا الله دولك جيجيدان waxaad ka heshaan waa halaagoon sadaradeed diintu waa nasiixo waxay tahay markaa nasiixadu ilaahay kibriyaan loola imanin نعمة هداد هالشينا أبال مركو كبر ما هي نبي موسى مركي لباد باديي صامبو أبال قد كردقي نبي الله محمد مركي وحي وكسو دقي صامبو أبال قد كردقي قفك مسلم كاهن نعمة مركو هلو عباده إيا تواضع إيا عفوي أيا السنة النبي وحي كسوغان إنو عباد الله يماده أما إنو عفو الله يماده dadkays hayeen u cafiyo ama yani wixii shukri naqu tilmaamayeen oo la yimaado shaawgeed Soomaali dhamaanteed haday 26 juun u dabaaldegayso iyo haday kow Juulaay u dabaaldegayso iyo haday 18 May u dabaaldegayso iyo haday maalmo kale oo tiro badan loo dabaaldegayso hadda wadankuba wada maalmo noqday مالين إلهي العاصية ما جرتو نساو قادا
maalin ilaahay la caasiyaa maalmaha kuma jirto. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.